السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعلن مهدي ساتية يكورسيدني بوينت اوف سلكا او نكو غودا جيرناي قيبت بيسك بوينت اوف سلكا او قيبت ugu muhiimsan oo haduu qofku fahmo بوينت اوف سل يا ايكونada halkaas ama featureska haduu fahmo uu si fiican markaas ugu shaqeyn karo maanta waxaanu casharkeenan oo noqonaya casharkii toddobaad ku soo qaadan doona waxa loo yaqaan hell receipt haddaba hell receipt waxay ka soo farcanta make selka oo hadaan make sel aan la sameyn ma sameyn kartid waxa loo yaqaan hell receipt qaybtan korhaynta ayaa ah qayb farceedu ka yimaado sida fallaadha aad ku aragtid make sel markii la sameeyay haddaba waa maxay muhiimadda ama faa'iidada ay hell receipt leedahay qaybtan hell receipt ama hell receipt ku waxa ay ka turjumaysaa hadii aad qof aad u sameynayso alaab aad ka iibinayso make sel aad ku soo dhufatay oo alaabtii aad qorayso cambe tusaale caano bariis past waxa soo kale dad qorayso oo qofkii uu yiraahdo cabar ban alaabooyin kale eeganaya meherada u dhex marmaro ama qiimayaal ku weydiyo waxaad ku soo tuuraysaa bartan oo qof kale oo taagan isna wax iibsanaya ayaa make selkii u tagaysa dadna u sameynaysa iibkiisi si aan xogtu kaaga lumin ayaa featureskan ugu jira point of selka oo aan cookbook lahayn cookbook ma leh meel aad ku sii xakiso alaabta qofku ka iibsanayo aad hakad ku sii samayso si aad mid kale uga iibso cookbook ma waa inaad ka noqotaa ma waa safe garaysa laakiin kan wuxuu ku leeyahay qaybta hell receipt oo ah in receiptska ay ku hayso oo halkaas kugu hayso waxa ka bedel ku sameyn karto kordhin karto alaabta qaar ka saari karto marka muhiimadda hell receipt waxa weeyaan in alaabta qofku ka iibsanayo hadii uu lacagtu barka dhimato hadii uu sidoo kale doonayo inuu alaabta indhendeeyo oo doonayo inuu wax kale ku darsado in halkan ku sii hakiso deetana iibkaagi maalinlaha iyadoo xogtii kaalumin hore aad iibka maalinlaha u sii wado dadka kale ee xilligaasi taagan meesha waana qayb muhiim ah oo aan cookbook aan lahayn laakiin point of sale haddaba muhiimadu waxa weeyaan in hakad geliso sidoo kale waxa ku sameyn kartaa qofka saacado gudahood doonayo inuu lacagti ku soo diro ama bar ka dhinaa uu ku soo diro halkan ayaad ugu sii tuuraysaa oo ugu haynaysaa hadhow markuu uu ku yimaado ama uu soo diro lacagti hell receipt-ka tagin deetana waad ka sii dayn make selka iman deetana waxa oran doontaa safe saasaad ku safe garan doontaa ay transaction daily saxda ka mid noqon doontaa casharkeena kooban oo maanta ku soo qaadanay hell receipt-ka halkaas uu nagu joogaa wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh